runtii maanta waa maalin taariikhi ah Soomaaliyana ay ku jirto howl aad u adag bini'aadamka waxa lama taabtaanka u ah noloshiisa waxa ka horeeyo wadaniyadiisa iyo dalkiisa iyo lahaanshaha dhuleed meesha home uu ku tilmaamo ana iska leh uu dhaho maalinta halkaas la taabto maalmaha kale way ka duwan tahay munaasabadeena quruxda badan waxa dhinac ugu jiro morningka aan ku jirno iyo mataqaana runtii falcelinta aan ka falcelinayno kiin maxalli Israa'iil ay shalayto ugu dhawaaqday in dalkeena ay soo fargeliso ay kala jirto dhulka Soomaaliyeed miduu ahaa doona miduu yahay dadka Soomaaliyeedna waa dad ehela walaala ah wada jiri doona waligoodna wada jiray